بسم الله الرحمن الرحيم halkaa naga daawanaysa waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed ku soo dhawaada meel kasto adduunka aad ku nooshihiin maanta hanbali inaan u diraan rabaa heer cadaado ma sha Allah ku heshiiyeen inay isteedistaan si fiican u heshiiyeen waxaan leeyahay tanaasulki badnaay iyo jajabnaashada badnaad iyo biseerki badnaay waxaan leeyahay hanbaliyo dalkiina dhista إن شاء الله تعالى حبين كميده هو الصوماليات ودفاع ضد كان يضل كان إلهي دين كديو همبليو هدي أن أوجد جرا قلب كمقام كمقدشو ضد كوحي وكلا بحيين سد حما أفر يوليان ضد وحي كبقايان قبل كما دام حنيه الدولة تهي عاصمة مقدشو أم قبل كبراندر تهي وحي كبقايان عقبات كوجدا من الدولة ضد كنا وحيد دفاع عن دولة كل جينا دولة هدانا اللي هي نور المجريس دولة دوا الذهب هي الأقارة مركا هديك الله فيريانا ضد كلا وحيد ودليل عيان هرمر لأنت كجرتو قبل يججبنا شذا بعض ما أركنا شركة هواوين أو دجن إن أي ما أركنوا قابا أفضوبته إلى العكسيان شركتها سوحي كفلين باهيدا كجرت مقدوشي وحي كديجي كران اسطنبول أي كديجي كران قروح ديدا أو كري كديس كران شركتها هدقن هدي أد أركتو باور كي القراء إليهين مقالة دينا ساركتي وججبانتا تاسن وحين نقنايسا لب مركا وحاكو صهري dadka kale oo ma arkino in aynan xuquuq siyaasadeed aynan ku lahayn gobolka Banaadir aadna taas nin hurda oo inta ka soo kaco maqar soo qad taas dhibaatay naganaysa dadka gobolka Banaadir ee xadaariga ah waxaan u baaqi lahay inay nabad qaataan kulligeena aan dawladda difaacno sababtoo dawladda dii la waayo wax jiraya mara nabadna ma jirayso dhibaatana ma jirayso dhibaato badan ayaa imaanaysa hadii ay dawlad la'aan ay meesha ay timaado waxaan dhihi lahay intaas oo mashaakila oo dawladda ku gadaaman hadda duqa la bedelay oo gudoomiye taabit nin dhalinyaro ah qadiyada oo hadda ku kacay aniga waxaan u arkaa nin magac raadisa siyaasadana guluf ugu jiro taasna waxay dhabarjab ku tahay dawladnimada dalkeen ay waxay ku tahay qatar sababta oo ah waa xaniyaha dawladana ciyaar ma gasho cid kasta oo isku dayda dhabarka ay ka jabaysaa qadiyada maqaamka muqdisho ani waxaan aaminsanahay in lagu dhiciyo ayadoo cod la helo amba ayadoo oo baarlamaankeena oo go'aan masiiri uu ka gaaro maadaama uu ku salaysan yahay sharcigan iyo awood qaybsigeena maadaama uu qabiil ku salaysan yahay golaha baarlamaanka inay ka gaaraan masiirkaas ay gaaraan ayaka marka haddii intaas la waayana aniga waxaan aaminsanahay xabad naga dhimi mayso waxaan unkana soo qiyaameysay intii dawladda hadda haysa hadii laga dhaafo afarta dawladood oo kale oo ka dambeeyeen xuquuqda gobolka Banaadir aad ay ugu tunteen ha ugu tuntaana maxaan unka faa'iidnay waxaan faa'iidnay dawladnimo oo dhidibada loo aaso insha Allah ta'ala musuqan aad u jeedin iyo ma arkino inuu xataa dhaqaalihii muqdisho oonan gobolkii oonan madax banaanaa karin markii la soo doorto dawladda waxaan ka codsanahay inayna taas siyaasadaynin ay taas caadi ah reegale ay u wajahdo dadka heer muqdisho hadda dhan u fiiriso oo aqliga oo fiirinayo wadankan intii la isu tanasulayo unka ximinaga ma maqnaanba oo cod dhacay dadka heer muqdisho hadii aad u fiiriso sababta oo ah dadka dhan masiirka muqdisho gacanta ku haayo waxa way dad heer muqdisho ah maadaama ay dad heer muqdisho yihiin manacib yihiin gobolkooda ama caasimadooda manici karaan laakiin dibjirnimay wadaan inuu dalkan oo isku filnaansho gaaro oo maalin aan codkayna qofkaan rabno ku doorano intii laga gaarayo lana sii siyaasadaynin dhaqaalaha amba
gobolka Banaadir hore markiisa insha Allah taala magacayga waa Cumar Maxamed Nuur soo dhawaada meel kasta oo ku nooshiin aad ayay ugu weyntaa maqaam inuu helo gobolka Banaadir laakiin haddii la xiriyo dhibaatada jirto waxay noqonaysaa in dawladda lala safto lana difaaco dawladda sababtoo ah miraayada dalka miraayada dalkana dhiidhiil ma gasho dadka danyarta ah iskuulada dadka danyarta si ay kor ugu soo kacaan dadkaas laga fikiraa mustaqbalkooda ay iskoolo helaan free ah dadka dhibaataysan amba gobolada oo dhan dadka siyaasiyiinta amba oda dhaqameedyada amba dadka culimada ka soo carara ee jooga magaalada Muqdisho waxaan ugu baaqi lahay inay nabadda ka shaqeeyaan dadkaasna amaankooda aad loo sugo sababta oo caasimadda Muqdisho qof kasta oo Soomaaliya waa inay nabad ku heshaa nabadaas markaa goboladii oo dhibaatada ka jirtana markaas ay ka howlgalaan ay ma arkino ileen afduub wax la yiraahdaan ina cadawgaas ka adkaano wadankeena cod gaaro hoos oo soo dhaadhacno dawladana waxaan ka codsanahay inayna siyaasadaynin dhaqaalaha iyo horumarka ku baxayo gobolka Banaadir oo gobolka Banaadir inuu bac iyo jajab ahaado aad ayaan dhiigayga u kacaya spiritkana aad ayuu u kacaya marka insha Allah taala waxa soo dhan uu ku xiriirino dawladda inaan taageerna insha Allah taala nabadna ay ku dhamaato. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.